السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وكلمتي صدحية طبناد إيه كتاب كيني الفوائد إيه فائدة عصب بإذن الله تبارك وتعالى فائدة ذان وحكم مقعاب ابن القيم أنواع من الجهاد وقيبه كمد الجهاد جهاد كو تربدا يهي وحون سود للشدي آيدي سورة عنكبوت لحدا يسقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين haddaba aayaddaas ibnu qayim sharaxaadda wuxuu ka bixiyey wuxuu yidhi alhidaayah hanuunku jihaadka ayuu ka mid yahay dadka kan kaamil hidaayadiisu ugu weyn tahayna waa qofka ugu weyn xagga jihaadka jihaadkuna waxa ugu sii waajibsan buu yidhi bal u fiirso waxa ugu farad oo ugu waajibsan afar buu ka soo qaaday jihaadu nafsi waa nafta oo lagu jihaado waa jihaadul hawaa waa hawada qofka inaad jihaad iyadana la gasho waa jihaadu shaytaan iyo shaytaanka oo jihaad la gasho waa jihaadu dunyaa iyo adduunyada ku jiidanaysa oo jihaad la gasho wuxuu yidhi ibnulqayim raximahullah qofkii afartan dagaalka iyo ku qaado ololaha ilaahay subxaanahu watacaala hadaahu allahu subula ridaah alla wuxuu ku hanuuninayaa albaabada iyo wadooyinka gaadhsiiya rabbi iyo raalli ahaanshihiisa iyo jannadiisa qofka ka taga arrimahan iyaga ah wuxuu ka helayaa ama mid ka taga ama laba ka taga kolba qadarka inta uu la yimid ayuu isaguna hanuunkii yuu ka haystaa haddaba aayadda waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin dadka umuuraha iyagaa la yimid ee la dagaalamay naftooda iska dhiciyey ilan al-ammaara bisuu weeye nafta qaybaha loo qaybiyo ilaa 7 qaybood waxaa ku jira midda xumaanta ku faraysaa ku jirta oo hawada iyo shaytaan waxay rabaan la dagaalama oo adduunyo inay ku jiidatana iska dhiciya ilaahay subxaanahu watacaala wuu hanuuninayaa subushu waxa weeye iyo arrimaha lagu hanuuninayo lanahdiyannahum buu leeyahay indhihiisu waxaan fiicnayn arki mahayaan dhegihiisu waxaan fiicnayn maqli mahayaan gacmihiisu waxaan wanaagsanayn qaban maayaan luguhu waxaan wanaagsanayn u socon maayaan marka sidaasuu rabbi u xifdinayaa ayib wuxuu kulmiyey rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam xusnu alkhuluq akhlaaqda wanaagsan wuxuu yidhi min attaqwa cabsida ilaahay bay ka mid tahay wuxuu jamciyey sala allahu calayhi waaalih wasalam cabsida ilaahay iyo akhlaaqda wanaagsan maxaa jira cabsida rabbi waxay hagaajisaa baa la yidhi qofka iyo rabbi calaaqada u dhaxaysa xiriirka u dhaxeeya allah iyo adiga xiriirka idiin dhexeeya waxaa hagaajiya cabsida rabbi xusnul khuluq akhlaaqda wanaagsanna waxay hagaajisaa adiga iyo dadka waxa idiin dhexeeya cabsida alle waxay waajibisaa alla jacaylkiisa dadka akhlaaq fiican lagula dhaqmayna waxay keentaa ummadda jacaylkeeda inay ku jeclaadaan ilaahay subxaanahu watacaala jacaylkiisa hayna siiyo allah hayna jeclaado raalli haynaga noqdo hayna cafiyo haynoo naxariisto jazaakum allahu khayr وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته